وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hal-abuurka iyo heesaha ee Hiil Media oo habeen walba aad ka daawataan channelka Hiil Media caaway barnaamijka markaasi waxa marti inagu ah hal-abuur daayar oo markaasi gabayaal iyo maasooyin badan tiriyay waxa markaasi marti inagu ah oo caawa aan kugu soo casuunay Cabdirashiid Cabdullaahi Dulyar oo ah hal-abuur daayar Cabdirashiid ayaa rabaa ku soo dhaweeyo Cabdirashiid ku soo dhaweeyo barnaamijka hal-abuurka iyo heesaha Hiil Media walaal waa mahadsantahay maxamed Soomaali waan ku dhamaahay barnaamijka Hiil Media hal-abuurka heesaha waan ku mahadsantahay sharafta iyo sumcadda ku dhahantaad igu soo casuuntay barnaamijka intaan u gudgalin ayaa markaasi Cabdirashiid rabnaa inaad daawadayaasha iyo in wax ka ogaadaan bal halku Cabdirashiid ku soo barbaaray markaasi tarqnolodkiisa walaal magacaygu waa Cabdirashiid Cabdullaahi Dulyar waxaan ku dhashay magaalada caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaan ku soo barbaaray gobolka Mudug qaasatan magaalada Gaalkacyo waxaan waxbarashada heerkeeda kala duwan dhexdiisa sare ku soo qaatay isla magaalada tani waayahay hal-abuur daayar ayaa tahay sidoo kale buug ayaa qortay qoraana waad ku darsatay wixii kugu horreeyay aad curiso oo maxay ahaayeen oo aad bilowday walaal hal-abuurku waa wax ilaahay qofkiiba uu siiyo in muddo baan isku arkay sidoo kale waxaan ku soo biiray bahda dhigaalka ee qoraalka 2018 bishii 11aad oo markaan soo dhigana soo bandhigo soo saaray sanadkaasi sanadii ka horreysay waxaan qoray isla dhiganahaas waxaa jira maasooyin iyo waxyaabo kale aan curiyay maasadii kugu horreysay aad curiso oo aad kugu horreysay aad curiso maxay ahayd walaal maasadaasi waxa la oranayay dhoof oo waxay ka lisay taariibkii waxaas inkastoo hadda aan xasuusan waxa kale bal maasooyin kalaan hadda tamaan ku hayaan xasuusto waayahay bal maasada ugu horreysay aad barnaamijka anaga iyo daawadayaasha ku xiran Hiil Media aad nala wadaagayso oo caaway aad ugu soo tala gashay daawadayaasha Hiil Media bal nisoo gaarsiin maasada tani waxay ka hadlaysaa dhaqanka iyo hibada iyo hidaha waxaa la yiraahdaa dhaqan waxay oranaysaa sida tani suugaan dhumac weyn maxaan ka dhiidhiyay ereyada dheer iyo maxaan oraahaya dhigay dhan kastaba ha noqotee maxaan murti dhoobay hoy waxaa lagu udub dhaxaatiireede haddii aan u dhaadhaco maasada dhumaceeda iga dhamo dhaansada dhurbahoo iga dhura wixii aan dhan mariyo dhan kale aan sheegay in badan baan dhigiyo curisyaha isa dheereeya in badan baa dhibiyo ka dhalay dhimashiya dhiig laba dhiil wadaagto alaadee ka dhexayso soo dhexdhexaad umaan noqon haddii aan u dhaadhaco dhaqankeeni dheeraa dhinacyadiisa buuxee dhudubi iyo lool baan lahayn dhur iyo dhaqan baan lahayn dhibad iyo dhaliil baan lahayn dhaxdin iyo dhalaashaan lahayn dhil iyo dhurbi baan lahayn shiikh loo dhiibaan lahayn kala dhex guraan lahayn gurti dhowrtaan lahayn aqli hooy dhistaan lahayn gayaan isku dhool baan lahayn dhan kasta oo dhisan baan lahayn in oo dhaqan ahayd baan lahayn intaa oo dhiso noo ahayd intaa dhaqan noo ahayd maamadii kala dhiibtiyo dhux u shubtaan lahayn wixii aan dhan maray dhan kalaan dhulka dhaqanka loo dhigay haddii aan dhadhaabsho dhagortanaan ku dhaxaadso dhallinyaray dhammaatiin dhaqankiina dhowro wuu dheelinayaay afkiisa dhaawacan degtiyo qoraalkiyo hidihiisa dhaydo wuu dheelinayaay inta maxaan ka u dhintay sharafta kaliyey intigay ma dhaafsado dhoomiya gacan fuluus dhaxan iyo qabow male dhibil iyo kule daran dhexdhexaad mugweeyo wuu iska dheeli tiran yahay intaas inka badan maasaas lahayd waayahay markaa maasaas aad curisay bulshadu falcelinta aad kala kulmisay maxay ahayd walaal bulshada inta badan way maasaas way la ronaatay wayna fajac gelisay waxaan kala helay falcelin aad u wanaagsan in ay dhaliishiye in wanaag sheegtaba way isugu jiraan waana salaamaya bulshada dhammaan waayahay gabaygaas ayaad curisay gabayaal badan ama maasooyin badan aad curisana barnaamijka hal-abuurkii heesaha ee daawadayaasha aan ugu soo bandhigi doonaa waxaa jira dhanka kale buug aad qortay bal muxuu buuggaas u yahay magacaad u bixisay iyo wuxuu ku saabsanaa iyo ujeedka aad ka lahayd walaal buug waxa la yiraahdaa horumarinta dalkaaga hooyo wuxuu ka hadlayaa qofka shakhsiyadiisa
qof horta wuxuu horumarin karaa markuu nafsiyan horumariyo siduu qofka u horumarin lahaa dalkiisa, siduu ugu dhiiran lahaa horumarka dalkiisa iyo waxyaabaha caqabada ay dalka hortaagan sidii dalka ugu tusaaleyn lahaa. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa dhibaatada dalka haysata iyo marxaladaha looga gudbi karo. sababtii igu dhalsan waxay ahayd maadaama dalka kusoo jiray muddo 30 sano burbur iyo dhibaato, inaan bulshada jaalkayga aan ku dhiirigelin inay ka qayb qaataan horumarinta dalkooda iyo deegaankooda. waan rajeynayaa inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay garato fikradda in dalka la horumariyo. wuxuu dalka sugaya waa dhalinyarada. sidoo kale bug waxaa kamid cutubyo uu ka hadlaya dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dalkooda Soomaaliyeed iyo sida uga qayb qaadan lahayn horumarinta dalkooda. sidaas buu ka tarjumayaa. waayahay dabcan maasooyin badan ayaad curisay oo meeshaan laguma soo koobi karo. maansada ku xigta oo aad noo soo qabanaysa caawo annaga iyo daawadayaasha Hiil Media bal maxay noqonaysaa waad nagu soo talagashay? walaal ruucayn waxay ka hadlaysaa qof dumar ah xariir iyo xariir iyo ugbaa xuural cayn ideeqdaay tii xiriirka beertaay xiisahan ku kulanaay xaqiiq barashadeen weligiis xabiibkiyo xilkaas guul ma waaye hanta ruux yaqaaniyo xaadkan iyo xiin maad noqonine sida mayay xiskeeno xarfo baa laheedii xilliguu ka horo barqan waray xareedii xooluhu darduurtana hiiqdiyo haraadkii xakaarkii karaysteen yaad xabiibi adiguna xididada wadnaha suran xarakaad u yeesho ka sifaysay xumi dabcan maasadaasi waxaa ku jira magaalooyin badan aad ku tilmaamayso. markii ay dad calashaan lasii dhegeysto gaalkacyo dadka way ka sugayaan maadaama aad meesha ay tahay kusoo barbaartay. walaal gaalkacyo meesha kusoo barbaaray waa aad iyo aad waa magaalo aan jecelahay. waa magaalo dadkayga deegaankayga ah. waa laf dhabartii magaalooyinka. waxaan maasadiisa ugu jirin qofkii markaas loo tiriyay baan magaaladan kasoo jeedin oo magaalooyinka aan tiriyay iyo daafeheedii bay joogtay. sidaas baan ugu ereyadaasi iyo magaalooyinkaas aan ugu soo daray. dabcan sidan aan ka arkayo qofka la ammaanayo qof naga dheer maahana waa bal jacaylkaas iyo ammaantaas ma isdhihi karaa waa laga miro dhaliyay? aad iyo aad walaalo labada qof muhiimka isku ahay oo xiriirka iyo hasaabo markaas ka dhexeeyo ujeedada ugu weyn la iska leeyahay waa kalsooni nafsiyan ah. waan rajeynayaa kalsoonidaas in ka badan hadda ka haysto. waxaana jeclahay inaan mardhalkeeda iyo guusheeda aan gaarno.